caruurtii yaryarka ahayd haweenkii iyo raggii oo dhan waxaa la keenay furimaha dagaalka waxayna hawshoodu iskugu jirtaa ama guul ama geeri taasoo ay ku doonayaan ama inay ku baaba'aan ama ay kula wareegaan kulan waxana wanaagsan qaarta wada nagala socota ay beelwalba joogtaan iyo si walba oo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah TPLF oo ku dhow qabsashada magaalada Gondar oo ah magaalo istiraatiiji ah kana tirsan deegaanka Axmaarada iyadoo maalmihii ugu dambeysay halkaasi ay dagaal xoogan ay ka socdeen dhinaca kalena waxay TPLF soo bandhigeen ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada Eritrea oo maalmihii ugu dambeysay mas'uuliyiinta Tigreego ay sheegahayeen inay gabadfadlo ka geysteen gudaha deegaanka Tigreega dhinaca kale waxay dagaal xoogan ka socdeen 24 saac ugu dambeysay magaalada Baadama oo ka tirsan deegaanka Tigreega isla markaana xuduud leh dhinaca Eritrea qaramada midoobay ayaa ku eedeysay TPLF iyo dawladda federaalka inay ka geysteen gudaha Itoobiya gabadfallo bini'aadanimo isla markaana ay laayeen caruur iyo haween waxaan gabi ahaanba ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahinayaan warkeena kaga bogan doontaan waxaan historia ay kula sugan saaxiibkay Faahiye oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya Faahiye soo dhow waan dhawaasan tago haddii aynu ku bilowno TPLF maalmo ka hor ayay ahayd markii ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca dawladuna aysan wax wara ka soo saarin dhinaca dawladda federaalkuna ay sheegtay xabad joojinta TPLF ay ku dhawaaqday in jab weyn lagu geystay dagaaladii ciidamada militariga dalka Itoobiya ay la galeen waxaana moodaa inay soo rogal celiyeen magaalada istiraatiijiga ee Gondar ayaa la sheegay inay qarka u saarayeen ciidamada Tigreegu ayna qaban ay saacado kooban ay sheegeen inay ku qaban doonaan bal adoo noo soo koobaya maxaa ugu dambeeyay xagee la kala maraya dagaalada dalka Itoobiya ka socday Santiago aad baad u mahadsan tahay xaaladda dalka Itoobiya oo ay ka socdaan dagaalo muddo hadda bil ah kadib markii ay istaageen dagaaladii hore ee 2021 waxaad moodaa in labada dhinac maalinta ka dambayso oo mid walba guul sheeganayo aynu ku bilowno magaalada Shireero ciidamada militariga Itoobiya oo garabsanaya kuwa dalka Eritrea ayaa la wareegay isbuuc ka hor iyagoo halkaasi ka saaray ciidamadii TPLF ee ku sugnaa guud ahaanba deegaanka Shireero iyo deegaanada ku xeerareysan oo dhan ciidamada Tigreega waa laga saaray waana laga xoreeyay balse TPLF ayaa maalmo kadib dib oo la wareegtay aagaasi ciidamada militariga Itoobiya ayaana ka wada halkaasi duqeymo aad u xooggan oo ay ku beegsanayaan fadhiisimaha ciidamada Tigreega iyo sidoo kale goobaha ay dadweynaha iskugu imaadaan waxaana la sheegayaa in magaaladaasi uu ka dhacay xasuuq aad u xooggan oo bini'aadantinimada ka baxsan dhinaca deegaanka Baadame dagaal xooggan oo aad u khadhaadh oo saaka bilowday ilaa iyo hadda waxaa la soo warinayaa in la maqlahayo jugta iyo reenka rasaasta ay labada dhinac isu adeegsanayaan deegaankan haddaan saaxiibadeen u yar bayaamiyo waa deegaanka uu muranka weyn muddada dheer ka dhex taagnaa ama 30 sano TPLF Itoobiya ka arriminaysay uu ka dhex taagnaa iyaga iyo dalka Eritrea qayb waxaa haysta Tigreega qaybna waxaa haysto dalka Eritrea haysashada dhulkaas waxaa sabab u ah in uu yahay dhulka canjeerada la yiraahdo deefta ama canjeera daafida la yiraahdo dhulka uu ka soo gayo oo ugu badan ee Itoobiya ku yaalo dawladda Itoobiya dhulkaasi waxay sheegtaa in iyadu leedahay oo ay ugu murmaysaa sida deegaanka Walqayd Warqohmara iyo Raaya hadda ay ugu murmayaan qoomiyadda Amxaarada halka Eritreankuna ay sheegtaan fadhiisimaha ciidamada Itoobiya ee ugu badnaa halka fadhiyayna TPLF ay dagaal ku qaadeen November sanadii 2020 ayna sababtay inay hubkii ugu farabadnaa iyo sidoo kale saadkii military ugu xooggan ay ka heshay ciidamada Itoobiya halkaas ku sugnaa dagaalkan halkaas lagu soo qaaday waxaa la sheegayaa in madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki uu qorsheynayo in ciidamadiisu ay inta hadda dagaalku uu socdo ay la wareegaan bataatanba ee deegaankan Baadame balse TPLF oo aan maanta haysanin ila kale oo cunto iyo sidoo kale meel ay wax ku beeratay maadaama laga haysto gobolka Walqayd iyo Warqohmara oo ahaa dhul beereed kana uu yahay dhul beereedka kali ah ee soo saaray canjeera deefta ee ku haray gacanta Tigreega TPLF aad ayay ugu dagaalamaysaa ciidamadii halka ku soo duulayna waxay kala kulmeen iska caabin aad u xooggan iyo sidoo kale in la burburiyo ciidamadii Eritrea iyo kuwii militariga Itoobiya aagaas dagaal ka soo qaaday waliba waxaa la sheegayaa Santiago dagaalkan markuu Baadame saaka ka bilowday ciidamadii Itoobiya ee garabsanaya kuwa Eritrea in ay dagaalka ka baxeen ama ay joojiyeen oo dagaalku uu ku ekaaday ku Eritrea maadaama labada dawladood ee Eritrea iyo Itoobiya isku hayaan dhulkan la isku haysto ama deegaankan loo yaqaano ee Baadama markaynu xaggaas kaga soo tagno xuduudda Tigreega iyo dalka Eritrea ee inuu soo aadno deegaanka Amxaaradana furimo dhowr ah ayay TPLF saaka ka furtay deegaanka Walqayd Warqohmara iyo sidoo kale magaalada Adigreet oo bataatanba ay gacanta ku dhigtay maanta niskii dambe dhinaca kalena gobolka Wallo dagaalo goosgoos oo ka socday maanta labada dhinac wax natiijo maysan kala gaadhin balse aynu ku noqonay magaalada Adigreet oo ah magaalo istiraatiiji ah
dhinaca kalena uu maro jidka weyn ee isku xidha gobolka Tigreega iyo magaalada Gondar iyo sidoo kale magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Amxaarada ayay TPLF maanta la wareegtay. Magaalada Gondar waxay u jirtaa 180 kilomitir oo laami ah, waxaana loo socdaa wax ka yar 3 saac iyo 2 daqiiqo. ciidamada Tigreega halkaasi qabsaday waxaa la sheegay in dagaal mashaqo ah oo labada dhinacba ay ku baaba'een, sidoo kalena uu soo kala gaadhay jab iyo naasabeel aad u xoogan inuu halkaasi ka dhacay. qabsashada magaalada Adigreet markay la wareegeen TPLF gudaha magaalada ayay gacanta isha ku dhigeen, dhammaan qabalayada ku hareereysan ayay la wareegeen. kadibna ciidamada militariga Ethiopia ayaa halkaasi ka bilaabay rushayn iyo sidoo kale in ay diyaaradaha droonka iyo diyaaradaha miiga iyo helikabtarada ay u adeegsadaan. inkastoo la sheegayaba TPLF maanta inay halkaasi aad iskaga caabisay diyaaradahaasi oo ay ku garaacday lidka diyaaradaha iyo sidoo kale qalab casri ah oo meesha ay ka heshay ilaa iyo hadda ay garan laadahay dowladda federaalka Ethiopia. Santiago waxay TPLF saraakiishooda laga soo xigtay in ay sheegeen in ay u ruqaansan doonaan dhinaca magaalada Gondar oo dib dambe aan looga qabsan doonin magaaladan Adigreet oo maalmo ka hor TPLF laga qabsaday, haddana ay dib uga qabsatay dowladda federaalka Ethiopia. marka Santiago markaad fiiriso marka xaaladan hadda dagaal ee soo cusboonaatay, maalmihii hore dagaalku xawli ayuu ku socday, labada dhinacba way ku jabeen dagaalka oo way ku baaba'een. sidoo kalena mid kasta waxa soo gaaray jab aad u xoogan. ciidamo ka badan 100,000 ilaa 90,000 oo askari oo Ethiopiana ayay TPLF cagta ku marisay aaga deegaanka Takase, gaar ahaan webiga marka ay go'day buundada. hay'adaha qaramada midoobay, dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaana TPLF dhambaal ay u direen oo gaarsiiyeen. sidaan xogta ku helayno waxa uu sheegayaa in lagu amray in aysan soo bandhigi karin meydka iyo sidoo kale ciidanka halkaasi ay ku laayeen oo ka badan 100,000 ilaa 90,000 hal meel ay iskugu keeneen. oo ugu dambeynna TPLF waxaa la sheegay in ay documentary inta ka diyaarisay meydadkaasi ay cagaf u soo qaadatay oo ay ku xabaashay halkaasi. mashaqo aad u xoogan oo argagax ku abuuray beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka ayaa la sheegaya inuu ka dhacay. dhinaca deegaanka Amxaarada markaan u imaano Santiago, waxaa la sheegayaa ama ila wareedyo xog ogaal oo la xidhiidhna waxay noo sheegayaan in isbitaaladii ku yaalay magaalooyinka Gondar, Gojam, Bahardar, Wallo, Dhasay, Kombolcha iyo sidoo kale deegaanada kale ee Amxaarada in ay buux dhaafiyeen meydadka dhaawaca. guud ahaan deegaanka Amxaaradana in magaalooyinka waaweynaa la geli lahayo ur iyo qarmuun loo geli lahayo maadaama meydkii uu tirada ka batay oo meel walba meyd u daadsan yahay. sidoo kale waxaa la sheegayaa in dhaawacu uu tirabeel noqday, kadibna Amxaaradu ay samaynaysaa hadda in ciidamada iyo sidoo kale dadka shacabka ee xabaddu ku dhacday markay wax ka qaban waayeen ay iyagu laynhayaan oo ay xabaalahayaan. waxay dowladda federaalka Ethiopia ku eedeeyeen in aysan si weyn uga qayb qaadanin wax ka qabashada, la tacaalida iyo in loo geeyo daawooyin dadka halkaasi ku jiro ee dhaawacyada iyo sidoo kale dadka dhibaatadu soo gaadhay. dhinaca TPLFna maalin hore sidaan warbixinadeena qaybo kamid ah ku sii daynay, waxaa ka jiro in deegaanka Tigreega hadda ay ka dhamaatay daawadii, gabaabsin ay kasii tahay. TPLF laftigeedana waxaa iisha qayladhaan iyo waxa weeye walaac aad u xoogan ayay ka muujinaysaa xaaladda xilligan ka haysato waxa weeye cunno yaraan iyo daawo la'aan iyo sidoo kale shidaalkii oo aad gabaabsi u ah. dowladda federaalka Ethiopia oo maalmahanba waday abaabulo deegaanada dhexdooda ah, sidoo kalena ay ku doonaysay in ciidamada liyu booliska dowlad deegaanada Ethiopia ay furimaha u dirto. caqabad xoogan ayay kala kulmaysaa deegaanada, gaar ahaan deegaanka Oromia, deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale deegaanka Gambela iyo deegaanka Benishangul. waxaana la sheegaya deegaanadaasi madaxdoodu in ay sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn ciidamo dambe oo ay furimaha u diraan. dhinaca kalena ciidamadu uu ka dhex jira khilaaf aad u xoogan oo aysan u diyaarsanayn in ay ka qayb qaataan dagaalkan. marka waxaad moodaa TPLF in ay gadaasha iska soo riixayso oo isa soo caraabinayso, kolba ciidan fulinta geenayso waxa weeye si ay horumar ooga samayso dagaaladan in ay isku dayayso. dowladda federaalka Ethiopia waxaad moodaa inay isku dayayso bal in ay xakamayso weerarada iyadoo inta badan adeegsanayso ciidamada dalka Eritrea ee dagaalka ee qaybta ka ah, dhinaca kalena ka dagaalamaya furimaha gobolka Wallo, gobolka Walqayd, Waqooyi Raaya, deegaanka Canfarta gaar ahaan deegaanka Birhale iyo Bade iyo sidoo kale magaalooyinka Shire, Shareero, Adebayo, Salambasa iyo ciidankan hadda cusub ee weerarka ku soo qaaday meesha la yiraahdo Baadhame. Santiago, waa hagaag. TPLF waxay ciidamada dowladda federaalku ay sheegeen in ay gebi ahaanba cagta mariyeen iyaga oo xabad joojintani ay tahay qayladhaan iyo sidoo kaleeto awood darro ay ciidamada militariga dalka Ethiopia ay geysteen. dhinaca kale labadii sane ugu dambeeyay waxaa saarnaa cunaqabatayn oo deegaanka Tigreega wax soo galayay iyo wax ka baxaya toona ma jirin, oo marinadii waxay u soo mareen iyo xuduudadii oo dhan way ka xidhnaayeen. xaggee ka heshay awoodda intan leeg ee ay dib ugu qabsanayso magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmarada isleeda?
Santiago marka aynu qiimayno xaaladda dagaal ee hadda Ethiopia ka socdo dagaaladan u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka TPLF oo waxiga weydiinayso xaggay awoodda ka helaysaa horta TPLF inta badan sida ay hadda iyagu sheegan hayaan deegaanada meesha la yiraahdo Qobo isha Gobiye meesha la yiraahdo deegaankan la yiraahdo Sakota Gashane Aagan Walqayd Aagan sidoo kale isha waxa weeye dhulkan ay gacanta ku dhigeen oo dhan waxa la sheegayaa in hub military oo aad u fara badan in ay ka heleen ama ay ka furteen ciidamada militariga Ethiopia waxa weeye saad fara badan ay heleen shidaal ay heleen sidoo kalena ayba iyagu sheegteen ama saraakiishoodu ay sheegtay in ay hadda gacanta ku dhigeen hubkii ay ku dagaalami lahaayeen 10 sano ee soo socoto maadaama ciidamada Ethiopia hubkoodii iyo awoodoodii iyo saadkii yaalay oo dhan la geeyay furimaha hore ee dagaalka dawladdu si ay iskaga difaacdo TPLF balse markaad fiiriso hadalka TPLF ka soo yeedhayana dhanbaad ka rumaysan oo waxaad arkaysaa ciidamo kumanaan ah oo ka tirsan militariga Ethiopia oo gacantooda galahayo oo saraakiil xigeenno iyo xitaa ciidamadii waardiyaha ka ahaa ama waxa weeye ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa waardiyeynayay inay TPLF gacantooda galeen dhinacaas marka laga soo tago hubka gacantooda galay TPLF doorkan waxay la kulantay jabkii abid ugu xooganaa ee soo gaadho kumanaan ciidamo ayaa lagaga laayay furimaha dagaalka iyo sidoo kale goobihii ay weerarka ku soo qaadeen iyo goobaha iyagaba weerarka lagaga qaaday deegaanka ay aad ka ugu baabeen waxa kamid ah deegaanka loo yaqaano Waqoohumara halkaas oo ay doonayeen inay gacanta ku dhigaan oo dekedan qalalan ee Djibouti isku xidhay dekedan Djibouti ana dhihna Suudaan iyo isku xidhaysa Ethiopia inay gacanta la wareegaan Santiago ama gacanta ku dhigaan sidoo kale dagaaladii ka socday Aagan Shireero iyo Adipayo iyo sidoo kale Shire deegaanadii ka socday duqeymihii diyaaraduhu ay geysanayeen fadhiisimihii iyo sidoo kale goobaha TPLF ku sugnayd cagta ayaa la mariyo waa la baabiyay waxaana la sheegayaa in doorkan uu ku dhacay xasuuqi abid ugu xoogana sidoo kale waxaa jirta xogo hoose oo soo baxaya Santiago oo ku aadan in saraakiisha ugu sarsareysay Tigreega qayb ka mid ah la laayay qaybna ay dhaawac yihiin madaxweynaha gobolka Tigreega Debretsion Gebremichael muddo hadda waxa weeye 2 isbuuc ah lama hayo labadii isbuuc ee u horeysay dagaalku uu furmay ayuu dhowr jeer warbaahinta ka soo muuqday oo ka hadlay xaaladda dagaalka balse hadda jaan iyo cirib meel uu istaagay lama hayo sidoo kale markay xabad joojinta ku dhawaaqayeen TPLF waxa laga haystay sidaad ogtahay magaalada Shareero iyo sidoo kale magaalada Shire oo ahaa goobo istiraatiiji ah waxayna ka cabsanayeen in ciidamada Ethiopia ay gudaha u soo galaan gobolka Tigreega dhinaca kalena ay kala wareegaan magaalada Maqale caasimada gobolkaasi balse hadda waxaad moodaa markay dib u qabsadeen magaalada Shire iyo Shareero in ay hayaan in furimihii ay ka wadeen deegaanka Amxaarada ay awood iyo xawli iyo xawaare aad u sareeyo ay ku soo qaadaan dhinaca kalena ay isku dayayaan in aagaasi ay la wareegaan marka xagga kale markaan ka fiirinana TPLF-tu maadaama ay tahay gobol cirka iyo dhulkaba ka xidhan oon hawadana waxba uga bixi karin deegaanada xuduudda la leh aan xidhiidh la samayn karin sidoo kalena ay meeshaasi ka jirto cunno yaraan shidaal la'aan iyo sidoo kale dadku inay baahiba leynayso caruurtii yaryarka ahayd haweenkii iyo raggii oo dhan waxaa la keenay furimaha dagaalka waxayna hawshoodu iskugu jirtaa ama guul ama geeri taas oo ay ku doonayaan ama inay ku baaba'aan ama ay kula wareegaan waxa weeye guud ahaanba dalka Ethiopia oo Abiy Ahmed ay xilka ka qaadaan ama uu ka baxsado dalka Ethiopia dhinaca kalena Abiy Ahmed oo yaqaano ficilada TPLF Abiy Ahmed uu hadda saa ugu la dagaalamayo u diidan yahay inuu heshiis la galo wuxuu og yahay hadday helaan fursad yar oo kooban inaysan ka hadhaynin dambiyo dagaal ay ku eedayn doonaan waxa weeye luquntan ay u gali doonaan oo noloshiisa inta ka dhiman TPLF aysan marnaba waxa weeye ka hadhi doonin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed maadaama arrimaha ka cabsanayo nimankan TPLF oo niman kani adag oo waxa weeye qaab daran oo jixin ay yihiin asaga laftigiisu tabar iyo taag wuxuu hayay wuxuu saaxiibo wuxuu dirsan karay iyo sidoo kale cid kasta oo xidhiidh la samaysan karay xidhiidh ayuu la samaystay hub ayuu ka soo gashaday wadamo fara badan sida Imaaraadka Turkiga waxa la sheegayaa safarkiisa galbeedka Afrika inuu helay hub aad u xoogan oo sidoo kale uu kula dagaalamay TPLF kaasoo laga dajiyay magaalada Maqale dawladda Iran waxa la sheegay inuu diyaarada ka soo gashaday marka labada dhinacba isuma daahayaan wayna is yaqaanaan oo TPLF-tu Abiy Ahmed iyaga soo tababaray iyaga soo carbistay heerkan maanta uu joogana iyaga soo gaarsiiyay isaguna waxa weeye rag wacanjeerada la cunayo weeye rag uu maanta la dagaalamayo ficilkooda iyo dhaqankooda iyo waxa ay la maagan yihiin garanaya marka su'aashaada weydiisay TPLF xagee ka heshay awoodan arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo hubka ay heleen jabka iyagu soo gaadhay inay nafl caari yihiin ama guul ama geeri ay ku dagaalamayaan in Abiy Ahmed aysan rabin inuu Addis Ababa sii fadhiyo sii fadhiyo baabi'i doonaan arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo TPLF xilligan way ku qasban tahay in ay furimaha dagaalka sii xoojisa dhinaca kalena ciidamadeedu ay waxa weeye isku dayaan inay guul ka gaari karaan dagaalkan
wagaag beesha caalamka iyo qaramada midoobay maalmihii ugu dambeeyeyba warar ayay ka soo saarayeen ku aadan sidii loo dhadhexaadin lahaa labada dhinacna ay dagaalka u joojin lahaayeen. dhinaca kaleeto waxa ay sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka in ay gabodfallo geysteen labada dhinacba oo dad rayada la xasuuqay, walow dagaalo xoogan ba ka socdeen gudaha oo dadka rayidka inta badan ay saameyn karaan dagaalada gudaha ka socda. bal sida khaaska dadka goobaha la tilmaamay ee dadka lagu xasuuqay waa xagee? santagow aad baad u mahadsan tahay. hay-adaha qaramada midoobey iyo dowladda maraykanka iyo midowda yurub, midowda afrika iyo sidoo kale dowladaha dariska aba baaqoodu marnaba kala joogsi ma samaynin. waxayna ku baaqahayeen labada dhinacba in ay joojiyaan colaadan iyo hubkan ay isu aruursanhayaan iyo furimahan cusub ee sida maalinlaha u furmayso. dhinaca kalena miiska wadahadalka iskugu yimaadaan si xaaladan dalka etoobiya sii xumaanayso ee loo soo gebagabeeyo, balse labaduba midna dheg jalaq ooma siinin. sidoo kalena dowladda maraykanka waxay cunaqabatayn dhowr kusoo rogtay dalka Ethiopia, gaar ahaan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale xafiisyadii ay siin jirtay dhaqaalaha kabista. waxaana la xasuustaa in inta arintaasi ay dhacday dowladda Ethiopia dhaqaalaheedii uu dhulka galay, lacagtii birka ay qiimo beeshay, maciishadii wadankuna maanta dadka Ethiopiaanka ay ka cabaadayaan xabadii dhaabowga ahayd ama rootiga ahayd in ay marayso 30 bir ama waxa weeye isha 50 ilaa 40 bir in ay marayso deegaanada qaarkood. dhinaca TPLF sidoo kale maadaama ay ahaayeen dad deegaana ama jamhad hawdka ku jirto oo iyadu la beegsanayo cunaqabatayn caalamku u soo jeediyeen danka ma aysan lahayn. sidoo kalena inta badanba wadamada caalamka wax cunaqabatayn meena saarayn maadaama mar walba eedu ay qabanayso dowladda federaalka Ethiopia. iyadoo arrimahaasi jirto maanta waxay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay in dowladda Ethiopia uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kaleba TPLF ay geysteen xasuuqyo iyo sidoo kale gumaad ka dhan ah bini'aadamka, kutumasho xaquuqeed, kufsi, tacaddi iyo sidoo kale bahdil ay ku sameeyeen deegaanada uu dagaaladu ka socday. waxaad horay u ogeyd labada dhinacba in uu midba midka kale ku tuurahayay deegaanka Takase, gaar ahaan webigan hadda ay ku dileen inta ka badan 100,000 ama 90,000 ee ciidanka waase iyagu sheegteen in waxa weeye ay dowladda Ethiopia ku eedeynaysa hadda ka hor inay ka geysteen dambiyo dagaal oo ay dad ku baabi'iyeen. sidoo kale deegaanka loo yaqaan Maykadra waxaa la sheegay in uu ka dhacay xasuuq. TPLF xasuuqaasi waa ay diiday, dowladda federaalkana waa ay diiday, midba midka kalena wuxuu doonayaa inuu xasuuqyadaasi ku eedeeyo maadaama uusan doonaynin inuu dembi qaato, dhinaca kalena uu waxa weeye culays caalamka uu saaro. sidoo kale waxyaabaha eedahan loo cuskanaya waxaa ka mid ah xagga dowladda federaalka Ethiopia inay duqaymo ay ka geysatay magaalooyinka Maqale, Adigreed, magaalada Shire, Shareero iyo sidoo kale deegaamo fara badan oo ka tirsan gobolkaasi in ay ku xasuuqday dad shacaba, wadaadad diimeedyo oo dadka kristaanka oo masaajido waxaa ogeeyay masaajidka Najaasho kale in la burburiyay, sidoo kale in kaniisada iyagana la burburiyay baa Aisha warbixinta qaybka in goobo waxbarasho, goobo ganacsi, goobaha isbitaalka waxaad ogeyd maalmo ka hor in diyaaraduhu ay duqeeyeen magaalada Maqale, gaar ahaan caasimada iyo waxa weeye jaamacadda. sidoo kale in ay duqeeyeen isbitaalka guud iyo waxa weeye xaruntii telefishinka Dhimsi Wayaane deegaanka Tigreega ama codka TPLF ba ku hadlo. sidoo kale magaalada Shareero markay duqeeyeen TPLF waxay sheegtay in duqeymahaasi lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dad shacaba iyo goobo cibaado oo la iskugu imaanayay maalin axad ahayd. arrimahaas oo marka qaramada midoobay warbixinta ay soo saartay eed culus ayay u soo jeedisay labada dhinac ee dagaalka isku hayo, waxayna ku sheegtay in dagaaladan iyo waxa weeye duqeymaha meeshaasi ka socdo inay xasuuqyo ku geysteen. laakiin TPLF iyo dowladda dhexe midnana wax warbixin kama soo saarin, iyadoo mar walba dowladda dhexe Ethiopia eedda ay saaraysay ama ay iyadu waxa weeye aad ugu xogan saaraysay in hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada Antonio Guterres iyo Tedros Ghebreyesus oo ah madaxa hay'adda caafimaadka adduunka inay dagaalkan qayb ka yihiin oo ay TPLF la safan yihiin. marka isku soo duuduubo eedaymahani kuwa horay u soo jiray weeye, wax cusubna ma aha, dagaalkanna ilama aha in ay hadda wax ka bedeli doonaan. aad iyo aad baad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay Faahiyo nala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin. wararkeena xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaan Allah.